6 sano ayaa laga joogaa markii uu dhacay qaraxii gilgilay guud ahaanba shucuubta iyo qalbiyada dadka Soomaalida 14 Oktoobar sanadkii 2017. hal gabar iga tagay marka soo dhalama alhamdulillah maxamed kale ida hadda dhawaatada dib noo dhacay dib weyn noo dhacay wiil adiga oo da'daado kale hal gabar iga tagay ana salaad casran qad badana jilaa salaad casran badana jilaa ka salaad casran ku hortay tagnaa ana gaasha tagnaa maraan soo kacay qarax dhacay wiilkayga lama soo garaa marlaba garaa والوي بابا وحيك دعم حنون بدنا نوياش أنا حتى حساس دين صوت على بيتي من مالتي حتى بشكوى ما كان يرى علي قم صدق عايسي كل شيء كري كحسوستا ضبنا صاحب بدي ضبنا قرابنا هاي يير بنا كل تماشى سرق بنا صاحب بدي ماشى عروي كل هنشري وتكام كل هنشري أنت وأقول أنت الله ونحرسته عمران أو مركب waxaan dhahay ninkaas waa tegiis ka dhaafo dhacdaas aad iyo aad noo xanuujisay walaas weyn ayaan soo qoray maadaama suufkii naga dhintay ruuxii dab ku dhinta oo gubta waa shahiid ruuxii guri ku dumo oo ku dhintana waa shahiid buu nabiga sallallahu alayhi wasallam dadku waa gubteen qaybo ka midana dumitaan bay ku dhinteen qaarna labadu waa isugu darmadeen saas daraadeed waxaan leenahay waxaan u rajaynaynaa inay shuhada yihiin Soobe maalin murugadeeda iyo weliba walbahaarka iyo dhibkeeda wadata isla mar ahaantaasina ay dhinteen kumanaan iyo kumanaan shacab Soomaaliyeed dilbiya fiti baaburka meesha istaay ani asxaabtay sheekaysaneen qaraxaata aan waa ka oldi asxaabtiin meesha ku tamaatay hooyada dhimatay meedkeeda hooyadeeda ka soo qaaday booliisku wuxuu taagan yahay hawaaye habeen maalin waxa mar difaacno gabadha cid ala cid taqaan hooyada dhimatay si degdeg ah eheladii qaraabada u yimaadaan geesay ciidanka arrimada kala soo xiriiraan booliiska Soomaaliya kala soo xiriiraan Soobe waxa uu ka mid ahaa musiibooyinkii aan la mahadin ee ku habsaday ummadda Soomaalida waana mid ka mid ah qaraxyadii ugu waaweynaa ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qaraxani 14 Oktoobar sanadkii 2017 dhacay ayaa waxa uu galaaftay nafaha kumanaan iyo kumanaan qof kuwaasi oo ku leeday qaraxaasi isla mar ahaantaasina godgale halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen xukuumaddii waagaasi ka talinaysay dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay qaraxaasi ka damaysay kooxda Al-Shabaab qaraxani ayaa waxa uu ahaa mid baaxadiisu ay weyntay isla mar ahaantaasina ahaan kuwoodii ugu cuslaa ee qarax ee ka dhacay inta la xasuusan yahay magaalada Muqdisho marka laga yimaado dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxaa sidoo kale yana ku burburay hantidii naf iyo maalba ahayd ee halkaasi dul taalay isla mar ahaantaasina isugu jirtay ganacsi iyo hawlo kaleeto oo ay dadkii halkaasi deganaa waagaasi isticmaalayeen Soobe waxa uu xasuusta iyo qalbiyada Soomaalida kaga tagay hurgumo iyo mahadho aan mar quraata ka milmin xasuustooda taasi oo ah mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu gaarigaxa badnaa ee ay Soomaalidu la kulanto meel kastoo ay Soomaali degtana waxa uu ahaa mid laga damqaday isla mar ahaantaasina jidhka iyo naftuba ay ka jirdhocootay qaraxii Soobe kooxda fanaaniinta xidigaha geeska ayaa iyaguna heeso kala duwan oo dareen leh iyo bulshada Soomaalida qaybaheeda kala duwan kaga wada falceliyay waxaana ahaa mid uu qof kasta ee Soomaaliya uu dareenkiisa si guud iyo si gaaraba ugu cabiray arrintaasi qaraxii Soobe iyadoo la wada xasuusan yahay lana wada ogyahay sida Soomaalidu ay isugu tahay dad isku af diin iyo dhaqan ah Yaxya Muuse Ibraahim Nairobi warbaahinta Hargeysa